بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله رب العالمين walaalaha ku xiran channelkeena haddii aan ka raali noqdo muuqaalkan waxaa idinkula wadaagi doonaa duco aad u muhiim ah bishan Ramadaan gaar ahaan salaadaha taraawiixda iyo tahajjudka marka la tukanayo sujuudda lagu akhristo kaliya tahajjudka iyo taraawiixda lama akhriyo ducadan waxaad akhrisan kartaa mararka aad salaadaha tukanayso gaar ahaan salaadaha sunnooyinka sababtoo ah sujuudda waqtigan ku jirno rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuuna faray in aan ducooyinka badino oo wuxuu noo sheegay inay tahay markaan ilaahay ugu dhownahay sidoo kale ducooyinkeena ay qarka u saaran yihiin in la aqbalo waqtigaa marka ducooyinka waa la badiyaa ducadanna waa duco ka mid ah ducooyinka qofka khushuuca geliya haddii aad macnaheeda garanayso ilaahay idinkiis ducada iyo macnaheedaba waan baran doonaa maanta waqtiyada kale oo ducada la akhristo waxaa ka mid ah marka adigoo quraanka akhrinaya ay kuu soo maraan aayadaha sujuudda ducada aan ka hadlayo waad wada fahanteen sida aan rajaynayo maadaama aan bil Ramadaan ku jirno oo hadda taraawiixdii ay noo soo socoto oo haddana tahajjudkii haddii ilaahay nabad nagu gaarsiiyo aan sugayno way fiican tahay inaad ducadan sii barato si hadhow markii sujuudda la aado aad u akhrisato walow ay jiraan dad aanan aqoonin oo markii sujuudda aayadaha la soo gaaro ee la aado ayagu akhriyo subxaana rabbiyal a'laa subxaana rabbiyal a'laa mana ahan ducada meeshii loogu talagalay maanta waxaan baran doonaa ducadaas tusaale ahaan haddii aan soo qaato aayadaha sujuudda waxaa ka mid ah waxay ku jirtaa suuratu iqra aayadda ugu dambeyso wasjud waqtarib quraankana meelo badan bay kaga jirtaa marka sida loo taagan yahay sujuud la aado ducadii aad akhrisan lahayd ayaan maanta baran doonaa waxa uuna qofka dhahayaa waqtiga سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وانكعلنا يا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين ducada macnaheedana waa sidaan waxaan u sujuuday oon wejigayga dhulka u dhigay ilaahaygii khalqay dartii yacni wejigayga ilaahaygii khalqay baan dartiis dhulka u saaray oon u sujuuday allahaasoo isiiyey arag iyo maqal quwaddiisa iyo xeeladiisa ah waxaa barako badnaaday ilaahayga axsanul khaaliqiinka ah yacni midka wax khalqidda ugu wanaagsan ee ugu farsamada badan waa ilaahayga wejigaaga sameeyey marka wax badan oo qurux badan ama aad la yaabtana khalqay ilaahaygaas ayaan u sujuuday baad leedahay marka ducadaasaa la akhriyaa salaada sidii loo taagan yahay oo quraan loo akhrinayo ayadoo rukuucdii waqtigeedii la gaarin baa waxaa lasoo marayaa ama ha la gaarin haddii la doonay aayad sujuud ay ku jirto kadib imaamka sujuudu aadaya dadkiina way ka daba aadayaan marka ducada la akhriyo xilligaa ma aha subxaana rabbiyal a'laa ee waxay tahay midaan hadda baranay sajada wajhiya liladii khalaqahu washaqa samcahu wabasarahu bixawlihi waquwatihi fatabaaraka allahu axsana alkhaaliqiin waxaan rajeynaa inaad fahanteen macnahana waan soo sheegay wejigayga dhulka allihii khalqay baan u saaray dartii ee aragga iyo maqalka i siiyey oo quwaddiisa iyo xeeladiisa yacni aan ku helay waxaa barako badnaaday rabbiga abuurista wanaagsan
Marka aan masaajidda aadno, waxaan aragnaa waxyaabo badan oo khalad ah oo dadku ay sameynayaan nagu garab tukanaya. Waxaa wanaagsan inaad u sheegto qofka kuu dhow waxa adiga aad ogtahay ee isaga uusan ogeyn. Waxyaabaha waxaa ka mid ah dadka qaar baa waxay sameeyaan marka salaada la tukanayo ee imaamka uu faatixada akhriyo. Markuu akhrinayo qaar baa la akhriyo horta oo quraanka la qabto. Lamana ogola midaa ileen maxaa lagu tujinaya haddii adiga aad imaamka boobayso ood garab ordayso. Waa inaad markuu dhammeeyo kadib adigu waxaaga akhrisataa. Faatixada waad akhrisanaysaa. Faatixada markaad akhriso suurad kale kuma daraysid. Faatixada oo keliya aad akhrisanaysaa kadib quraankaasaad dhageysanaysaa. Dumarka aniga intaan arkay waxay sameynayaan qaarkood markuu imaamka faatixada akhrinayo way la akhrinayaan. Markuu dhammeeyo hadday quraantaa garanayso way akhrinaysaa. Hadday garanaynin mid yar oo kale ku darsanaysaa. Ileen waad aragtaa qofka garabkaagu joogaayo shuxshuxdiisaad maqashaayo iyo waad dareemaysaa. Marka ma fiicno sida in la sameeyo. Waa inaad adigu imaamka markuu wala daalin yiraahdo kadib aad faatixadaada bilaabataa sida aad maqasho dadka dhan inay markaa bisinka qabanayaan oo ay akhrinayaan. Kadibna waa inaad aamustaayad quraanka dhageysataa. Aayad ka mid ah suuratu Acraaf Allah wuxuu ku yiri وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرآنك markii la akhrinayo dhageysta waliba dhageysta kaliya ma ahan attention sii yacni u dhag raarici لعلكم ترحمون marka waxaad u dhowdiin in la idin naxariistee. Marka imaamka quraanka noo akhrinayo adigu hawshaadi maaha faatixadaada ka adkow kadibna dhagaha la imow. Ileen naxariis baa la rajaynayaa waa inaad xuquuqitaanka tirada badan iyo xarakaadka yareysaan. Salaada ma buriyaan laakiin waswaaska shaydaanka kugu badanayo. Waa in markaad quraanka si wanaagsan loo dhageysto. Waxaa kaloo muhiim ah anigu arkay marka la rakuuco yacni markii jilbaha la qabsado dadka qaar baa aad u foorarsado oo afka iyo jilbaha isa saaro. Taana ma wanaagsano qofka waa inuu dhabarkiisa sinaadaa markuu rakuuco oo galaas biyo ah haddii la saaro uusan dhicin. Laakiin haddaan intaan jaf dhaho dhulka madaxa geliyo rakuucdaada waa khalad baa ku jiro. Marka waxaan waa in la iska saxaa qofka deriska kula ah u sheeg sida ugu fiican ee loo rakuuco inuu dhabarka simo markuu uu rakuucayo. Quraanka lala akhrinayo kale dadka waa loo sheegaa in quraanka la dhageystaa la faraa. Wixii aad markaa aad dareento oo dhan waa laga saxaa ileen ajir baad ka helaysaa qofka noloshiisa inta ka dhiman. Haddii wax adiga aad u sheegtay uu ku dhaqmo ajir baad ku leedahay inta uu wado dhan. Marka waa muhiim in la iscaawiyo. Muuqaalkeenan intaasaan ku soo koobaynaa wixii aan khalday naftayda iyo shaydaan bay ka ahaatay. Waad mahadsantihiin idinkana.